أنت كأخري إن كستان تدبر هايستي أنت أنا وآخرني هذا تدبر عشوا أنا قلبت كي واحد بدن كبرتي وما ركتي عاو هالكن يدك الشيء واحد ترى بدن وحنا نسلا قراء ودلال كوجليي iyo caqabadii ka soo maray challengeski iyo obstacleski faraha badnaa ay ka soo maray waa uu qalmay ugu horeyn buugu wuxuu ka kooban yahay 13 cutub iyo 205 page buu ka kooban yahay wuxuu ka hadlayaa waxyaalo badan oo dhaqanka la xiriira dhaqankuna waa wax common ah oo Soomaalida ka dhaxeeya oo ay tahay Soomaalidu inay ilaashato ama wada difaacato ay waajib ku tahay dhowr cutub oo aan islaahay waa muhiim ayaan dul istaagi doonaa muddada yar aan haysto inta kalena waxaan uga baxayaa qoraaga ayaa sharxi doona inta kale ee noo harsan for example cutubka koobaad oo kale qoraagu wuxuu kaga hadlayaa afka iyo suugaanta waxaynu maanta garanaynaa yani afka halka aynu ka taaganahay afku waxa la yiraahdaa waa jiritaanka ummadda for example markaad Soomaali tahay waxaad Soomaali ku tahay waa afka shalay waxaynu arkaynay ama dorcad ardayad Soomaaliyeed oo jaamacad dhigata oo inta waxar la hor keenay la yiri maxaa la yiraahdaa waxarta markaas ay tii Nile baa la yiraahdaa markaas la yiri waxaad ka warantaa yaa dhalay baa la yiri markaas ay tii riba dhashay bal adigu riya Nile waa baj macnaheedu waxa weeye taas macnaheedu waxay u dhigantaa dhinaca kalena waxaynu arkaynay face verse kale waxaynu arkaynay gabadh Masaare ah oo PhD da ku diyaarisay naxwaha Soomaaliga waxa laga yaabaa in badan halkeen fadhida inaanay Soomaaliga afkaas u aqoon cilmi inuu yahay iyo aqoon inuu yahay inaanay u aqoon ba dhici karta waxa ku lamaan suugaanti oo iyaduna tilmaamaysa aftahanimadii qofka tilmaamaysa waxa kamid ah afkii inuu xambaarsan yahay diinti oo afka hadii laga tago qofka diintiisa xataa hoos u dhacayso oo afka laftarkiisa af Soomaaligu diin buu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay qaraabadii wuxuu xambaarsan yahay isku xidhkii wuxuu xambaarsan yahay qofku marka hadduu ka dhex baxo wuxuu noqonayaa qof waageeni ah ama ajnabi ah oo aan Soomaalidii fahmayn qoraagu marka cutubkaas ayuu aad u faahfaahiyay oo aad uga hadlay si weyn waliba uga hadlay cutubka kale aniga soo jiitay waxa kamid ah cutubka afraad oo uu kaga hadlay qoraagu noocyada guurka ma indhow baan weydiiyay waxaan ku leeyahay guurku waa imisa nooc markaas waa meher iyo aroos wax ka dhaxeeya ma jira biyada waxaan guurka ka horna dal guurka ka hor ka war markaas uu guurka ka hor waa inaad gabadhii la sheekaysataa oo doonada doonata wax kale jira wax kale ma jira qoraagu la 12 nooc ama ka badan oo Soomaalidu hore adeegsan jirtay ayuu halkan kaga hadlay oo guurka ah for example waxa kamid ah guurka la yiraahdo magacdoon ayaa kamid ah guurka magacdoonka la yiraahdo markuu qoraagu sharaxayo wuxuu yiri waa guurka uu wiilku ka guursanayo ama uu doonayo reer magac leh isagoo aan gabadha garanayna xataa ayuu gabadha guursan maayo reerkuba guursanaya magacaas for example reerku waa saldanadaas u raadinaya tusaale ahaan ama waa madaxda wax kale ba haysta wuxuu kaloo ka hadlay qoraagu guurka nooca loo yaqaano maamuuska waxa la yidhi goor gaaban hadalkeedna gaaban marka Soomaalida waxa ku mahmaadaa hadal dabadii iyo hayaan dabadii midna la isma taago biyo hortood la isma taagaa la yiri maadaama dad badan ay hadalka saga dambeyn doonaan ayna jiraan madax daafurkan darteed u timi oo hawlo ka culus waday sida wasiirka oo kale ay goobtay noo joogaan waxaan rabaa inaan anigu ku soo koobo maadaama de buugii la akhriyay oo de anigu waxaan oran lahaa buugay ku qoran yihiin buugan waxaan bilaabay qoristiisa sanadku markuu ahaa 2019 bishii afraad kowdeedii waxaana gacanta ka qaaday sanadku markuu ahaa 2022 bishii afraad 10keedii caawna waxaan ku daafurnaynaa qoraaga buugga oo barnaamij loo baahnaa dayacnaa basaasnaa
dhulka in laga qaado u baahnaa runtii ka qoray buuggan dhaqanku waa waxa ummaddu kaga soocan tahay ummadaha kale in dhaqankeennii iyo afkeennii iyo hiddaheennii buug laga qoro runtii wax aad iyo aad u weyn weeye qoraaguna waa ku mahadsan yahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya dhallinyarada reer Sanaag oo runtii awal lixjalo aad u weyn iga gashay anigoo runtii awal baa lixjalo iga jirtay oo in badan macallin u ahaa haddana caawa lixjalo weyn baa runtii iga gashay sida isugu duuban yihiin buugga iyo waxa ku qoran waa la sheegay waxaan rabaa wax yar inaan ka tilmaamo akhriska iyo faa'iidada uu leeyahay haddaynaan fahmin micnaha akhriska uu leeyahay waxayna ku adkaanaysaa gadashada buugga iyo haddaynu gadano akhriskiisa iyo waxyeelkiisa marka yar baan isku xidhayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddii qur-aanka ahayd ee u soo horeysay ee nebi maxamed lagu soo dejiyey ilaahay wuxuu ka bilaabay iqra bismi rabbika alladii khalaq waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay iyo ilaahay fadliga iyo darajada uu gaadhsiiyey wax akhrisku inuu aad u weyn yahay runtii waxa weeyaan dhaqanka iyo luuqaddu ma kala maarmaan waxaa moodaa aad iyo aad dhallinyarada haddar xilliga joogta inay dhaqankii iyo afkii soomaaliguba inuu aad gabaabsi u noqday waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah waxaan ka soo jarmaaday burco waxaa ila socday niman dhallinyaraa ba ila socday dabeedna annagoo bancadda marayna ayaan waxaan arnay geel la maalayo goor subaxa markaasaan war geela ma u doonanaa muxuu ahaa ma u doonanaa maxaa la odhan jiray xigsin maahee jaraysimo ma u doonanaa markaasaa waxay yidhaha jaraysimadu waa maxay lama hadlina uma jawaabine gaadhigii baan leexiyey gaadhigii baan leexiyey dabeedna geela baa kuwa qabtay waxaa yidhi intaad degtaan inamadaa geela maalinta waxaad tirahdaan asalaamu calaykum calaykum salam ku yidhahdaan waxaad tirahdaan war waxaanu nahay muxuu ahaay jaraysimo doon baan nahay way u degeen watiga waxay yidhahdaan asalaamu calaykum calaykum salaam war jaraysimo doon baan nahay bay yidhaaheen waxay warnagu jaraysimo garan maynee fadhiistaan caayinsiine kuwii miyiga joogay oo geela la joogay baa garan waayey halkaa maxaa kaaga muuqata waxa weeye luuqaddii iyo dhaqankii iyo wixiiba inay guureen haddaan la daba qabanna inay sidaas ay ku lumayso horta madasha quruxda badan aad iyo aad baan u salaamayaa waana madal bilan oo wanaagsan ragga soo qabanqaabiyey iyo dumarka soo qabanqaabiyeyba aad iyo aad baan u kala soo dhaweynaya oo salaamaya salaan kadib qoraanka buugga runtii saaxiibaanu nahay in doonana deris baanu ahayn dhaqan dhowrahu ka qorayna iyada aad iyo aad baan waxa weeye u soo dhawaynayaa runtiina dhaqanku halka uu ka taagan yahay bulshadeenna maanta waxaa kuu muujinaysa in badan baa laga sheekeeyey halkan markaa caawa kolleyba waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa amba faydnaiyo waxba ay farin dhaqanka waynu ka sheekeynay qodobkana halkan uga faaidaysanaya intii dhaqanka laga yidhi ba hore looga yidhi laakiin qodobkan caawa soo qaadanaya waxa weeye qisa yar baan ka sheekeynaya halkan markaan waxaa lagu soo qaaday waddadii cergaabo way dhammaatay laakiin caawa waxaan leeyahay waddadii cergaabo horta ma dhammaan waddadii cergaabo ma dhammaano waddadii qayba hadhay berigii lowkii ugu horreeyay halkaa lagu shubeeyey ee jayga ama carakaawa annagu waxaan ahay dee dadkii hadda waa dowlayaal baanu noqonaye dadkii dhiiri gelinayey waxaa la isku qartay cergaabo waddamu loo samayn karaa mise looma samayn karo ilaa makhraati beenaale beentiisu makhraati waxaa la yidhi beenaale makhraatigiisu fogeeyaaye raggii joogay waa joogeene sawiradiina waa la hayaa inta badan bulshadana dadku waxay idhaahdeen cergaabo wadda loola samayn karo waddadii hadda alxamdulilah markii kaantaroolka cergaabo laga bilaabay ilaa iyo burco way dhammaatay taasaa dhammaatay caawa waxaa noo taallaa waddadii cergaabo laga bilaabi lahaa ee bero la geyn lahaa cergaabo waxay noqonaysaa magaalo cergaabo magaalo waxay noqonaysaa marka waxa weeye waddada burco ka soo bilaabantay ay boosaaso gasho waxaan doonayaa anoo afkii ku hadlaya bangiga salaan caawa safar baan ahaa gaari baan sii korayey waxaan u nagaaday dhaqan dhowre maadaamaan ku abtirsado hoggaan dhaqan waxaan ugu nagaaday dhaqan dhowre
waxaan ugu nagaaday dhaqan dhowre waxaan siri bal hadda qaybtii khusaysay madax dhaqameedka iyo hoggaanka dhaqanka inuu wax badan ka iftiimiyo maadaama hawlu isku soo baxsanayaan hadday kugu soo baxsato aad inuun bal hadda aad wax ka dheegan karto nin dhallinyaro iibsaday baan buugga indhaha mariyey qaybtii ugu muhiimsanayd oo boqor cuur madowna ka tegey oo ka hadlaysa waxa loo yaqaano garta iyo xukunkii Soomaalidu ay isku xukumi jirtay baan yar eegay walow suldaanki joogo rag kale oo dhaqan yaqaanina joogaan oo aanay qurux badnayn inaan dhaqanka ku sii tiigaalo maadaama wali u dhalinyarahay haddana waxa la yidhaahdo gartu aan dhegaysanno say madashinu ugu qurux badnaato waxa la yidhaahdo gartu horta waxay ka timi asal ahaan xadhiggii la odhan jiray garka ee awrta lagu xidhi jiray waxaana loo soo qaatay si qofku haddii uu khalad galo oo kale marka geedka lagu xidho uu geefkiisii ooga soo noqdo marka garta Soomaalidu waxay odhan jirtay 3 qaybood bay u qaybsamaan waxaa la odhan jiray waxay u qaybsamaan qudhu waa qaybta dhiigga waxay u qaybsami jirtay qurgooyo iyo waan filayaa inay ahayd wixii la odhan jiray qoomo qaybta labaad oo la odhan jiray qaybtii la taxalluqday marka dee dhaca iyo waxyaabaha iyaguna la isu geysto iyo qadaf iyo qaybtii saddexaad oo la odhan jiray iyaduna waxa la odhan jiray way iga baxsatay qayb saddexaad baa jirtay oo iyadu la taxalluqday sharafta haddii inanta la dhirbaaxo haddii ninka xoolo laga qaado waxyaabahaas oo kale cirdiga qofku dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa ku duugan yihiin si ay idinku dhaqanka u barataan oo waxa la idinku garnaqayaa u ogaataan dee buugga xoog ha loo iibsado insha Allah waxaan rajaynayaa marka koowaad waxaan u mahad celinayaa abwaankan soo qoray buuggan oo si fiican caawa nooga qosliyey waan doonaynay barnaamijka inuu noo yar kordhiyo weliba ninka la yidhaahdo maxamed maxamuud waxaan rabaa insha Allah inaan halkan in yar ka steego oo nadre iyo xaaji ay yar xoojiyo lacagtii 18 May lacagtii dawladda hoose isku khaldayaan marka lacagta ay bixiyeen lacagtii 18 May ahayd lacagtii dawladda hoose ma ahayn dawladda hoose cashuurteedii waa la idinka rabaa idinka insha Allah ganacsiguna insha Allah waa tarobtiino doo waa barakoobaya oo inoo hagaagaya haddii Ilaahay raalli ka dhigo marka labaad madasha oo runtii dadka oo fara badan anigoo soo koobaya hadalkayga waxaan ku soo koobi doonaa 2 qodob madashan markii layga yeedhay laygu soo casumay buugga cidda qortayna layma sheegin teetalka buuggana layma sheegin labaduba waxay ugu noqdeen 2 arrin oo mucjisaan ayay ugu noqdeen waa marka koowaad waxa qoray macallin waa marka labaad buuggu waa dhaqan dhowro wuxuu ku saabsan yahay dhaqankii labadaba 2 kelmadood baan ka oranayaa horta buugta halkan inoo taalla markii laga dhawaajay waxay sheegeen in 400 oo buug meelahaas yaalaan wasaaradda waxbarashaduna intaa way ka guda ballaadhantoo way nugu yar tahayo waan wada qaadan lahay horta waan idinka dhammaynayaa haddaan wada qaato sidaa laajigeed macallinka buuggan qoray waa macallin ka mida wasaaradda waxbarashada waa macallin qiimo badan waa nin dhallinyaro oo ka mida gobolka Sanaag haddii aanu nahay wasaaraddii waxbarashada munaasabad gaara oo dhammaan dugsiyadu ka soo qayb galaan oo jaamacaduhu ka soo qayb galaan oo koolajyadu ka soo qayb galaan oo tan oo kale baan horta marka koowaad ku casunnay anaguna ka wasaaradda waxbarasho ahaan buugta intaa taalla iyo in ka badan ay ka baxdo insha Allah tacaala waa marka labaad hadalkaydu ku badin maaye waxaan ku soo gabagabeynayaa maasayno marmar baan isku dayaa xagga suugaanta abwaan maanihi oo abwaankiisa Cabdillaahi baa halkaa fadhiyo abwaanadii gobolka ka mid ah laakiin xoogaa waan yar taabtaa waqti ay ahayd 2011 ayaan xoogaa isku dayay idina waa iga qiimeyn doontaan insha Allah tacaala maasadaasi dhaqankay ku saabsanayd waxay ahayd inaan dalka laga bixin oo laga tahriibin bay ku saabsanayd nimayo duwa dhaxdeen oo dhaayamuulahay dharaartii timaadaba waxbay dheehanaysaa wadna waa ma dhaafaan ninkay tiisu dhabaadaay dhaqankaaga hooyo iyo hadaad dhaafto hidahaaga ogow dhaayamaadhido hubal dhilin baad haddaad dhoof tidhaahdaan dhulkaba hoos u dhigan weydo haddaad dhoof tidhaahdo oo aad dhulkaba hoos u dhigan weydo oo aad dharaar iyo habeen dhegaha u taagto dhadhan male adduun dhayalsi mooyaane dhaqankaaga hooyo iyo haddaad dhaafto hidahaaga ogow dhaayamaadhido hubal dhilin baad waxa dhogorta geel iyo horweyn dhabada sii haysa waxaan dhiin banaaxiya iyo dhaanankan arooray waxa dhinac yaro adhi dharabsadee dhedada raacaya ragu dhabaradayga dhaqdo dhugu adduun weeye dhay iyo dharaan bay dhamaan oo la dhacayaane dheeli hilibku oo dhulyaal dheri la saaraayo dhufaanka iyo daabaxay iyo bagini ku dheeraane dhoohani dhiig nin lihi dharaar kama dhaqaaqeene dhaqankaaga hooyo
iyo haddaad dhaafto hiddahaaga uga udhaaya maad lihido wabaaldheelin baata dadkeennoo dhammaan wada dhashoo dheehasho u baahan oo kalluun laga dhursuugay dhinacyada u daatay oo kala dhambalay mawjadihii dhumucda weynaana dhankii aad u egtoba dhabtii dhaadasho u baahan dhoohana dhiig nin lihi dharaarkama dhaqaaqeena dhaqankaaga hooyo iyo haddaad dhaafto hiddahaaga uga udhaaya maad lihido wabaaldheelin baata waxaa macdanta dhookaysantee dhooba qarinayso dhagaxaa la riixoba waxaa dheeman ku hallowday aakoomaru indhaashan iyo luul ku dhabasoobay marka qorraxdu sii dhici rabtay wada dhalaashahay dhaqankaaga hooyo iyo haddaad dhaafto hiddahaaga uga udhaaya maad lihido wabaaldheelin baata dhallinyarada dhaameesho ee dhabbada sii haysa ee dabadu sii dhololaya dhoofka ku habsaamay haddii ay caqliga dheegayaan maba dhibtoodeene saxaraha dhexdiisa iyo badaha kuma dhammaadeene dhabashdhabashdan loo kaba iladay laguma dhaabmeena dhoomo caarahe ansaynaysona lama dharuureene dhididkii waalidkii iyaga dhalay meel xundhigayaane dhiilaawo iyo waxaa laga dhexlaa dhabanahaysun aad bay umahadsantiisa horta waxaan ugu horrayn u mahadnaqayaa qoraaga buugga maxamed maxamuud ducaale boqorre waxaynu ogsoonnahay gobolkeenna waxaa la yidhaahdaa gobolka awoowayaasha awoowayaal marka la leeyahay micnaheedu waxa weeye waxa yaalla dhaqankeennii hore oo dhan iyo taariikhdeennii hore buuggani wuxuu ahaa yacniga mawduucina ka dhiman in gobolkeenna loogu yimaado dhaqankeennii oo dabcan dhaqanka marka laga hadlayo waxaa laysoo xasuustaa malaasuugaan iyo haddii allaba idankeeda leeyahay agab dhaqan oo sida xoolihii iyo noocyadii kala duwanaa laakiin dhaqanku wuxuu xambaarsan yahay ha fikir bulsho hadday tahay dhaqaalaha bulshada hadday tahay garsoorkii hadday tahay noocyadii kala duwanaa bulshadao dhan marka aad baan ugu bogaadinayaa guud ahaan qoraaga buugga inuu xafladdii wanqasha buugga inuu ceergaabo u doortay buuggeennana inuu noqdo insha allah ceergaabona noqoto meesha buugga loogu iibsiga badan yahay maadaama aynu joogno bandhig buug oo weliba uu qoray nin waddani ah oo deegaanka ah oo weliba anagu aqoon dheeriya u leeyahay maxamed maxamuud ducaale weerax fooljeexsi kale anagu garanayaa aad baan u salaamayaa qoraaga buugga caawa anigoo howlo badan lahaa waxaan soo ajiibay qoraaga gobolkayga ah anigoo aan weliba gaadhsiinayn halkii aan doonaya inaan gaadhsiiyo magaalooyinka dalka lagu soo bandhigayo ama iyaga loo keenayo laakiin caawa maxamed reer cergaabo u hiiliyey inay qoraayo leeyihiin inay wax qori karaan reer cergaabona waa u hiiliyeen oo buuggan inay ka iibsadaan oo si fiican u iibsadaan bay muujiyeen waxa buuggan laga qoraynaa waxa weeyaan dhaqankii wuu suurayaa waxaad moodaa in social mediaha laynoo soo tahriibiyey dabadeetana uu dhaqankeenniina tahriibay oo dhaafay waxyaabihii la yaabkanaa laga sheekeeyey halka lagu soo bandhigayna waynu maqhraataynu ka wada nahay buuggaa lagaga bogan doonaa oo lagu ogaan doonaa sheekeeroo gaaban baan idiin sheegayaa oo dhex martay beri niman reer miya iyo dhaqanka sidii loogu adkaa weliba habluhu ay dhaqanka siday ku hayeena ninbaa wuxuu doonay gabadh oday buu u tegey gabadhaadaysi buu ku yidhi odayguna gabadhaa quru lahaa odaygii wuxuu ku yidhi 100 geela iyo baarqab baa kaa doonayaa ninkuna wuxuu lahaa 100 geela iyo baarqab keliyaba wuxuu eegay qiimaha gabadhu leedahay 100kii geelahaa iyo baarqabkii buu bixiyey odaygii uu ka kaxaystay wuu ka tegey muddo ka bacdi ninkii gabadhii oo keliya sida yacniga dhaqanka loogu adkaa ee ay habluuna hibada dhaqanka u xambaarsanaayeen 100kii halaad buu kaxaystay odaygii baa la tegey isaguna gabadhiisii buu imaansaday inay ugaadhsadaan bay bilaabeen isaga iyo gabadha iska ugaadhsada ayuu maalintii dambe ugaadhsi ku maqan yahay oo xabad sakaaraa la soo helay ama la soo waayo ayaa odaygii 100kii geela kaxaystay uu ka daba yimi maqrib buu gurigii yimi inankiina wuxuu ku maqan yahay sakaaradii yarayd habeenkaana waxba uu soo waayi doonaa maqribkii markuu gurigu yimi bay bannaanka kaga wartimi waxay ku tiri aabbahay baa jooga oo kuu martiya nin sodo kuu yimi waa garanaysaa sida xaajadu noqonay gurigana sahay ma taallo reer jaarkiisa ah ayaa jiray gabadhu intuu ninka soo socday ninkii jaarkay u tagtay odaygu masaafuu soo socday waxay istirtay waxaad odayga kusii qabato reerkan u weydii ninkii wuxuu ku yidhi bowdo sakaaraan haystaa wax caawa sahaya waxay ku tiri bowdada sakaaraysi wuxuu ku yidhi bowdada bowdaa lagu bedelanayaa bowdadaydaasi bowda ii bedelaysaa aad bay ula yaabtay
waayahe kan bay ku tiri wuu ka soo qaadatay odaygii bay ula timi gurigii bay kula soo noqotay ninkii wuxuu ku yidhi bal warran oo maxaad heshay boodadaasaan helay bay tiri habeenkii way iska seexdeen subaxii markay noqotay ayay ku tiri isugu yeedhay ninkii jaarka oo habeen dambe boodadii sugaya dee odaygiina waa u yeedhay ninkiina waa u yeedhay kii qabayna waa u yeedhay waxay ku tiri saddexdiinuba 3 maanlaawe tihiin maxaa dhacay bay ku yidhaahdeen waxay ku tiri aabbahay waa maanlaawe nin boqol geelaya baarqab haystay ayuu gabadh kaga bedasho dabadna uu ka daba yimi isagoo wixiiba ka kaxaysto waa maanlaawe ninkayguna boqol geelaya baarqab buu haysto anuu igu kaxaystay dee inuu iskaga kay tagayada waa maanlaawe saaxiibkeennan jaarkuna gabadha boodadeeda 100 halaad iyo baarqab lagu keenay ayuu boodo sakaare ku doonayo waa maanlaawe horta dhaqanku kaasuu ahaa qiimahaasuu lahaa soomaaliduna sarbeeb iyo si hoose iyo si guudba waxbay isugu tabin jirtay waan hambalyaynayaa waan bogaadinayaa saaxiibkay ninkii waxna baray ilaahay u naxariistee baa macad buu leeyahay ilaahay u naxariistay sheekh xasan xuseen macadkii baan siba u baahan bugaag magac macadkaasaan bugaagtaa u hibaynayaa biidnillaahi tacaala waayo waa sheekhii qiimaha badnaa xasan xuseen waa wada garanaysa ma filayaa ilaahay ha u naxariisto jannada farduusana ha ku waraabiyo meeshaa macadkaasaan geynayaa kolley 10 bug baan jaaco qaadayo jeebkayga wallaahi wa barakaatu anigoo aan cidna kala saaran dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ducana waxaan leeyahay malaa'igahayda salaanto wax la yidhi nin baa wuxuu yidhi wuxuu ahaa nin markii hore dee maaragtay wax badan hawla qaban jirayo dee balwadda aada ugu badnaa maalintii dambaa la yidhi wuxuu dhagaystay xadiiskii markuu dhagaysta buu yidhi aayad walbi waa korkayga aayad walbi anaa iga hadlaysaa dhaqan markaad eegtid waxaad is oranaysaa dhaqanka haddan laga hadlaayo wuxuu u badan yahay waa qoyska haweenka nacam dhaqan guuraha marka laga hadlaayo madashan buugga dhaqan dhowre lagu soo bandhigayo farxad weyn bay caawiya tahay inaan ka soo qayb galo waxaa farxad labaadii ah in ceergaabo buuggii dhaqanka lagu dhowrayey uu soo bandhigo qoraagan maxamuud ducaale weyrax oo runtii nin dhallinyaro ah oo aad tacab badan u geliyey ah dhaqanku dee wax la soo koobi karo ma aha waxyaabaha aan ka xasuusta haddaan 2 kelmadood ka idhaahdo dhaqanku iminka wuu sii yar suulayaa waxyaabaha suulinaya waxaa ka mid ah social media waxaan 2 kelmadood doonaya inaan idhaahdo maalin dhoweyd baa annagoo wada joogna nin dhallinyaro oo aan asxaabnahay ayaa waxaa noo yimi waxa la soo hadlay niman dhallinyaro oo asxaaba waxay ku yidhaahdeen inta badan social media wax lagu soo qoraa marka inanka iyo inanta doonaya inay isguursadaan berri iyo saa dambe oo kale ka misuun waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqanka afeeyey ninkii oo aan inantii laga soo doonin oo aan meherin oo haddii rabbi xukmiya aan war haynay loo soo socdo in ka masuun la sii geliyo dabeedna annagoo wada joogna ayaa lala soo hadlay social mediaha waxaa lagu soo qoray ka masuun show inantii walaashii baaba ku qoranoo hebel loo siiyey isna markaa ma hayo inantiina looma iman dabadeedna wuxuu yidhi waxaanu doonaynaa de gabaatigii inaad wax naga siiso ma annagii baad naga qarsanaysaa ninkii intuu yaabay walaal yaa la guursaday inantii walaalaha soo social media taala buu yidhi warkaa ma haye bal iska usubso buu yidhi oo uu ila xanaaqay runtii taleefonkiibuu ku dhigay wuu ii warramay annagoo hadalkii hayna ayaa mid kale oo isna warkii war la mida sidaa noo yimi labadeedii war inantan maadaa bixiyey buu yidhi anigu warkaa ma haye anugu inan layga soo doonay oo haddii rabbi xukmaya inan waan meheriye walaashaya maan arag laakiin dee ka misuuntaasi waxyaabaha dhaqanka baabiye bay ka mid tahay runtii oo waxyaabaha aan doonayno buuggan inaynu ka dheehano runtii dhaqanka in lagu soo noqdaa waa waxa weeyaan dhaqanku wuxuu ka mid yahay tiirarka aynu nolosheenna ama afkeenna buuggan waxyaabaha uu xambaarsan yahay marka laga tago ujeeddada qoraagani uu qoray ku dhalisay inaynu akhrisanno oo haddii aynaan akhrisanayn 100 buug iyo 50 buug la isku qorayo la iska dayo war 2 page ama 2 cutub aad akhridaa faa'iido weyn buu ku leeyahay salaanka bacdi runtii madashan sharfan boqran ee bilan runtii ilaahay baa mahadle caawa isugu kan keenay bandhiga buugga dhaqan dhowre oo uu qoray maxamuud ducaale weyrax runtii inaan aad maxaan ku raahdaa dhallinyaranimadii
si fiican u soo wada qaadanay wax soo wada baranay ah iyo runtii ustaadkaygii jaamacadda bare sare Siciid Cabdi Xasan boqor Cirmadow runtii aad iyo aad bay labadaba maxaan ku yiraahdaa inaan joogo iyo dhammaan reer Ceergaabo ama reer Sanaagba sidiiba horeba looga sheegay xafladda waan caawa u kala harin run ahaantii aqoon-yahankoodii iyo maxaan ku yiraahdaa madaxdii dawladda iyo madaxdii dhaqanka dhammaantoodba aad bay farxad gaar ah inoo ku tahay inaynu saacado badan u fadhino runtii wayna ka mudan tahay aad baan maxaan ku yiraahdaa u bogaadinayaa intaas ka bacdi sidii maxaan ku yiraahdaa hordhicii uu boqorku bixiyay ka mid ahayd halka dee dhaqanku inala marayo runtii waxa weeye waa meelaan ka fadhi u baahanayna gurmad u baahan waayo gabadh Soomaaliyeed baa waxay isku khaladay nayl iyo waxar maxaan ku yiraahdaa waxa weeye waana resource-keeni asalka ahaa waxa weeye halkii aynu ku tiirsanayn run ahaantii marka runtii waxay u baahan tahay ubadkii aad baana run ahaantii aan waxa weeye ugu dadaalaa bal dadku markay meesha ka joogaan aad aragtid in lagu bogaadiyo oo arrinta maxaan ku yiraahdaa waxa weeye laga tiiriyo insha Allah xitaa manhajkii aad loogu faahfaahiyo oo loogu dhigo ama iskuuladii ama jaamacadihii run ahaantii oo arrin noo ka baahan waxa weeye maalinba meel buu joogaa maxaan ku yiraahdaa dad dhaqan baynu nahay oo maxaan ku yiraahdaa laba nin baa la yiri geel waraabsanayay oo saaxiib ahaa nin guntu ka soo garaayo oo soo galxiyaa baa leeyahay wadaanta ka sar u dhiibaa maxaan ku yiraahdaa kii ninkii geel u faylinayay baa ka qabsaday wuxuu ugu heesay way ugu soo simayaan sidaa helay oo la sara kacay run ahaantii boqorku dadaal badan iyo maxaan ku yiraahdaa Abu Maxamed soo galiyay buugga Maxamed Ducaale innagana run ahaantii wax akhriskiisii iyo institutionadii iyo goobii waxbarashada iyo maxaan ku yiraahdaa inaynu geeyno ayaa laynoo ka baahan yahay run ahaantii salaaka dib ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa bahadle horta marka hore ilaahay ayaa mahadniina siiyay inaynu halka caawa ilaa 6 subax habeenimo ilaa iyo 10 habeenimo aynu ugu dabaaldegayno buugga boqorre waa Ceergaabo waa farxad caawa waa hambaliyo dhamaantii way idin hambaliyeenayaa guuleysta Allah idin garab galo dhamaantiin runtii hal qodob baan oranayaa kaliya halkan waa la soo wada kacay waa wasiiro waa boqorro waa hayaay waa hawe waa saddex shay oo aad u qurux badan ayaa madasha ku xidhan marka laga tago inaynu isla wada garanayno saddexdaas shay marna lama magacaabin halka maxaa ku arkaysaa halka hadda garanaysaan waxa ku xidhan alool waxa ku xidhan caws waxa ku xidhan kebin cidna ma sheegin waryaara dhaqankii baynu ka hadlaynay inaynu sheegnay ahayd maxaa waxa loo soo xidhay halkan waa la qurxiyay waa sax ninkii jaamac baa noo sheegay laakiin waa maxay halkan garta waa subiiciyadii iyo dharkii cad waxa aroosideenaba waa lagu arkaa laakiin kabada halkan alool baad ku arkaysaa aloolada guryaha la geliyaa qofkii Soomaaliya guri soo dhistaa garanaya qaybta uu kaga beegmo aloolkaasi cidima soo dhaqaajiso run baa idin sheegay hatta roobku kama soo galo anagu waan dhisanay waan samaysanay laakiin hadda ku faani maayo halka waxaad ku arkaysaa cawskii magacyay leeyihiin halkaana kabadi baa taala aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa si kaliya laaba oo aad qurux badan oo runtii qiiro gelisay cid kasta isku hawsha inay soo samayso waxaan jeclahay inay yar dhageysano waxaan u hambalyeeyaa boqorka runtii dhaqankeennii soo kabay oo buugga caawa dhaqan dhowre inoo soo jeediyey oo inoo soo bandhigay dhaqankuna wax aad u cajiiba weeyaan hadday nahay dadka Soomaalida ah waxyaabo badan baan arkaysaayo oo markii dhawata waxa la lahaa waxaan arkay ilmo yar oo baamiyi maangeynay kadib wuxuu arkay hal sidii boqorku markuu dhow sheegayay uu lahaa waxaa jirta markuu ratigu awrka abaahiyayo markuu ratigu awrka hasha abaahiyayo kadib waxay dhahaan adeerow day hashaas wuu kufsanayaa buu yidhi moogtahay wallahi waan naxay dee waxa weeyaan waa arrin aad u weynaa marka hasha uu abaayayaa buu dhihi lahaa laakiin wuxuu yidhi kufsanaya marka hadalkii wuu gara maray aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyarta quruxda badan ka soo qayb gashay cid kasta oo ka soo munaasabada soo abaabushay waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii soo abaabushay ee meeshan qurxisay ee ilaa asbuucii intii malaha 7 beri waa u dabaaldegayeen dhalinyaradaas aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu hambalyeynayaa shaqada fiican oo qabateen annagu waxaan nahay runtii bahda waxbarashada laba qaab baan samayn doonaa insha Allah isduwaha iyagii baa horta noo hadlay
wasaaradda waxbarashada jamane wuxuu dhahay madal baanu qabanaynaa waxbarashada ah buugtii mar buugta waan qaadanaya madashan waan ka qaadan doonaa isduuhu wuxuu ballan qaaday in jaamacadaha iskuullada waxbarashada kooleejyada oo dhan lagu casumi doono boqorka war boqor waan ku casubaynaa haddaan kooleej alxarameyn keliya maana kooleejyada oo dhan iyo iskuullada oo dhan ayaanu casubaynaa oo yeeri doonaa insha allah qandhowre iyo warkiisana caawo dhan baa laynagu shubayey waa u mahad celinayaa boqor cir madow saaxiibkay aanu isku xoogaa beri dhaweed isku meel joognay marar dhexdaasa sida fiican ay faahfaahsan uu inoogu dhigay tafatirka buugga iyo akhriska uu soo akhriyey badan anugu uma taagni 30 buug oo urur siyaasadeedka muxuu ahaa waa beri baan ku qaadaya waxaan u maleeyaa waxa jooga awowgay saaxiibkayna ah boqorkaygina ah guddoomiyahaygii xisbigaan ka tirsanaan jiray mar hore wadani faysal cismaan isna aad baan si gaara u salaamayaa suldaanka aad iga raali noqda hadalka dib baan ugu laabtay suldaan maxamed suldaan xasan cali jibriil oo ah suldaan reer sanaaga welibana suldaan degan hadda ceergaaba ah isna si gaaraan u salaamaya suldaan abti soo dhawow anagu ka jaamacad ahaan institution weyn baanu nahay 30 buug baan qaadaynaa 30 buug waxaan u kala qaadaynaa 10 buug waxaanu geynaynaa xarunta agoomaha 10 buugna waxaanu siinaynaa iskuulkaanu ka soo aflaxnay oo aanu ka soo biyo dhaansanay annaga iyo qoraaga buuguba 10 ka soo hadhayna waxaanu dhigaynaa maktabadda jaamacadda hadal badan yahay ma buuxsho intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaqan dhowre ninba meel buu ka taabanayey annaga wuxuu naga taabanayey qaybta biyaha oo kale roobabka ayuu aada u sharaxayey waxaa laga yaabaa iminka caargaabo in maanta roob ka do-o facebookga waxaa ugu horreeya lasoo dhigay inuu noqdo haddii la yidhahdo roobkaasu noocee buu ahaa ninba waxbuu ku sheegayaa qayb waxay odhanayaan roob badan baan helay qayb waxay odhanayaan waa doogsanay qaybi waxay odhanayaan wuxuu ahaa shuux buu ahaa marka buuggaasi qof aanu taabanayn oo madasha yimi ma jiro maadaama waktiguna kooban yahay hadalkii intii badnaana mas-uuliyiintii iga horreysay ay yidhaahdeen anaguna waan soo koobayaa hadalka waxaan islahaa wasaarado badan oo annaga ka wasaarad ahaan naga shaqaale iyo xafiisyo iyo maxaan ku rahdaa institution badan baa buug badan qaadanaya laakiin waxaa muuqatay dee inaan la isdhaaminoo wasiirku ugu sarreeyey iyo intii ka hoosaysayba aniguna anoo soo koobaya waxaan wasaaradda horumarinta biyaha u qaadayaa 30 buug ummaddu ay hanti u samaysatay nin la yidhaahdo hanti dhowre aad baan ugu faraxsanahay dhaqankana buuggii ugu horreeyey ee dhaqan dhowro ahaa nin reer ceergaaba inuu sameeyo sida hantidu ugu baahan tahay in la ilaaliyo si ka badan oo ka muhiimsan ayuu dhaqanku ugu baahan yahay in la ilaaliyo haddaba waa maxay faa'iidada akhrisku uu leeyahay dunida oo dhammi waxay isku raacsan tahay ummaduhu inay u kala horreeyaan siday u kala akhris badan yihiin ummaduhu inay u kala horreeyaan siday qoraalka u kala badiyaan maxaa yeelay innagu weliba islaam baynu nahay suldaanka nabadda inoo macneeyey qur-aankeenna 5tii aayadood ee ugu horreeyey ku soo degay waxay ku bilaamayaan iqra' oo macnaheedu yahay akhri isla 5ta aayadood laftigeeda ayaa haddana mar kale jalla wacalaa waxa uu leeyahay allah iqra' warabbuka alakram markaa akhrisku faa'iidooyinka uu leeyahay waxaan ka taabanayaa 4 tiir oo ugu muhiimsan tiirka koowaad waxaa la yidhahdaa akhrisku wuxuu xoojiyaa xusuusta wuxuuna ka hortagaa xanuunnada loo yaqaano kuwa xasuusta dila ee dadka ku keena asaasaqa ama maradu zuhaymriga xanuunka loo yaqaano akhrisku wuxuu xoojiyaa inaad ogaato wakhtigii tegay ee aanad noolayn wixii jiray la falgasho wakhtiga jooga waxa dhacaya isla markaana saadaaliso adoo gurigaaga jooga dunida waxa ku soo socda ee ku soo wajahan akhrisku wuxuu sameeyaa gurigaaga adigoo aan ka bixin inaad dunida daafaheeda wareegto oo bay'ad kasta iyo waxa ka jira adigoo aan tareen iyo dayax gacmeed iyo doon iyo markab midna raacin inaad la socoto akhrisku faa'iidada ugu khatarsan uu leeyahay ee adduunka oo dhammi iminka fahmay maxaa la yidhahdaa tusaacidu alfardi calaa takwiini shakhsi mustaqila baa la yidhahdaa inuu qofku gaar u noolaan karo oo gaar u istaagi karo oo meel fadhiisan karo waxay ka bilaabataa inuu buug qaadan karo oo meel cidla tegi karo oo la akhrisan karo
qofba qofkuu ka akhris badan yahay keligii wuu noolaan karaa waana isdaberi karaa waxaa la caddeeyey dadka ku tiirsanayaasha ah ee aan isdaberi karin inay yihiin kuwa aan waxba akhriyin waxna aan qorin qoraaga buugga waan uga mahad celinayaa isagoo reer ceergaabaa mar labaad inuu dhaqankii inoo dhowray waxaana leeyahay reer ceergaabow dhaqanka oo aynu dhowrannaa waxa qayb ay ka tahay buuggan aynu iibsanno isla markaana aynu akhrino ilaahay waxaan ka baryayaa inuu buuggan ninka qoray oo qoraaga ah mid kaloo ka sii wanaagsanna karsiiyo inuu qoro innagana faa'iidada weyni maaha buugtoynu guranno maaha faa'iidada ugu weyn waa buugtoynu akhrino caawa waynu dhammaynaynaa waynuna qaadanaynaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inaynu akhrino ka shakhsi ahaan anigu waxaan qaadayaa 35 buug waxaana u dhiibayaa 5 buugna anaa shakhsiyan u qaadanaya 3 hablood ee ugu soo casubayna waxaan ugu deeqayaa mid waliba 10 meeshay doonta ay geysa inay qaadato aad baa u mahadsantahay qoraaga buugga maskaxdiisa inoo tuujiyey buuggan qiimaha iyo qaayaha badan inoo soo bandhigay ee isugu jira afka iyo dhaqankaba waxaan kaloo u mahad celinayaa xidhiidhiyaha xafladda oo runtii xafladda caawa testi u yeelay reer Hargeysa xafladdan oo kale waxay yidhahdeen xaflad shidan ninka shidayna waa ninka xidhiidhinaya aad baan ugu mahad celinayaa runtii waxaa farxad weynii ah inaan buug qof reer ceergaabo ay qoray oo lagu soo bandhigayo ceergaabo caawa aan ka soo qayb galo runtii intaanan hadalkayga bilaaban waxaan bogaadinayaa mihnadda qoraalku mujtamaca Soomaalida wuu ku yar yahay akhriskuna wuu ku yar yahay waxaynu nahay oral society waxaynu nahay dad wax hadla hadalkana waxaa og cidda tiri iyo cidda maqlaysay laakiin buugga caawa halkaa lagu qoray waxaa laga yaabaa 50 sannadood kadib qof dhaqanka baranaya inuu library-ga ka soo qaato oo uu intifaacsado qoraalka inagu yar iyo mihnada inagu yar waxay keentay inay lunto af badan aynu leenahay dhaqan badan aynu leenahay taariikh badan aynu leenahay Soomaalidu xaggee ka soo jeedaa marka imika taariikhda la qorayo waa lagu murmaa laakiin hadduu qoraal jiro lama murmeen buuggani waa buug qiimo badan buugga waxaa magaciisu yahay dhaqan dhowre laakiin buuggu dhaqan kaliya ka hadli maayo afku ka hadlayaa maanta nin yar akhriyay afka iyo suugaanta ugu horeysa naxwaha afka Soomaaliga baa ku xiga kadib dhaqanku u galayaa siday Soomaalidu u garnaqsan jirtay roobabka magacyadiisa guurka magacyadiisa fardaha aqalka guriga ee aqal Soomaaliga la dhisto mid walba magaciisa runtii waa buug aad u qiimo badan